Allooyaanan gooyin ruux gobonimo daraadeed galabaan u baanaa gacawacni siiyo iidka abaal baalan. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإذن سلام أصحاب مال بادون كدافيد كجوكتنا ولاشين بدان إبراهيم ومركا الذين صلاواتي وإذن ودا فيديو عصوب بيروتين عصوب ما شاء الله ساكي واسوح كلو قروح بدن بحال ليه سو دواada asxaabta nagu cusub ما شاء الله أصحاب بدن aan kusoo biireen soo dhawaada qalbi furan iyo niyad saafiya ما شاء الله waa arkay sida quruxda badan ay channelka kor ugu qaadeen sida quruxda badan ay channelka ugu soo biirteen sida quruxda badan ay garabkayga u noqoteen aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan idinkugu talagalay kistaan yar inkastoo codkayga xabab yahay waxa waaye iska dhageysta bal allooyaanan gooyin ruux gobonimo daraadeed galabaan u baanaa gacawacni siiyo iigale abaal baalan. intaas kadib asxaabay waxaan rabaa intaan howlo kaleeto u guda gelin inaan uns yar meeshaan dhac iskaga siiyo ma fahanteen intaan toos loo soo wada kicin qolalka galabka yaa iska qaqaaciyaa oo maaragta carfisiya wax iskaga sii buufiya laakiin subax horeeta meesha dhaxda kaliya aan ku shidaa unsigaana ujeediin anaa haayo qofkii u baahan wuu ila soo xiriiri karaa linkiya hoos idin soo dhigaa commentiga ugu horeeya biinka saaran fiiri dukaankayga ka helaysaa waa unsiyaasha qadareenka maasha Allah aad u caraf badan yahay laakiin ani waxaa sameeyay waxaa ku dhex daray unsi kale oo maaragtay unsi Soomaali oo maaragtay hooyada macaan gacanteeda ku sameys maasha Allah aad u caraf badan yahay unsigaas inta qabtay asna dukaanka wuu yaalaa waa inta doona maalin kale ta video idinkaga soo sameeyna unsigaas inta qabtay hal caag ma hal gasac qabtay ajijibiyay markaa jijibiyay midkan kale tabaquurkaana ku dhex darsaday labadoodii waa isku qasay kadib ii sheeg sasa ugu qaacsadaa markaas kaleeto waxaan ku dhahay waaw guriga laga sheekay karo hal kaliya kuma eki sababtoo ah labadooda isku qastay markaasna caraf degan oo ma sha Allah oo waxaan ku dhahay 3 maalin 4 maalin guriga ka baxeenin oo ku yeelana asxaabay saaki rootinkeena waxa waa jikada yani waqti badan ku qaadan doona insha Allah canjeeradii iyo shaahi waa la soo sameeyay laakiin waxaan rabaa beer yar maaragtay oo sida suuga camal aan u sameeynaa inaan kasoo tuuro 3 nooc waa u sameysan kartaa iyo ka badan laakiin ani inta badan 3 nooc u sameeyaa hadaartin yahay waa ku dhex karsan kartaa hadaartid bardho waa ku dhex karsan kartaa hadaartidna kaligiis waa shiili kartaa ma fahantay marka adag kugu xiran rabitaankaaga insha Allah labada kale tan anoo sameynaa soo kaligiis anoo sameynayaan mar waa soo gali doonaa ayadoo yahay aan ku dhex sameynayaan waa soo gali doonaa insha Allah hadda labadaas baca frinjeerka igu jirto u dambeysay marka maanta waxaan ku dhal wiyaaca insha Allah inta haysan ilaahay ha siiyo intii haysatan ilaahay ha u daaweeyo ilaahayna ha u barakeeyo hadda saliid waa ku soo shubtay daliciya bilaabeena basashiya soo jarjaray waa u jeedina u maleena basashi haafa ku shubaa afkal gadaal uga diri doona kadib waxaan ku shubaa bardada ku shiila oo saliid ku shiila marka shiilo oo sidii jibsi camal ay noqoto kadib waxaan ku dari doonaa beerka ku dari doonaa beerka markaas kadib shiili doonaa si kalena waa u sameysan kartaa oo koow beerka inta shiishid bardada waa ku kordari kartaa markaas waa isku la shiili kartaa si kalena waa u sameyn kartaa oo koow bardada ya jibsi ahaan u soo sameeyay oo saliid gooni ku soo shiilay beerkina markaas shiishid kadib bardada waa ku kordari kartaa yani door weeyaa loo sameyn karaa beerka loo sameysan karaa marka adikii ku fudud leh ka qaado hadan digsiga waa daboolena wax yar waxaan rabaa inuu isku soo huuro kadib waxa ku daraa kuriski beerka waa la kala hormariyaa kuris haduu ku jiro hilib geel yahay kuriska marka hore shiil kadib beerka gadaal uga dar beerka wuu jilcan yahay marka dhamaan hadeera isku shiili doonaa bardadii gees iskaga leexiyay meeshaan yar oo banaasto waxaa rabaa inaan ku shiilo beerka wax yar markaan ku shiil kadib waa isku dari doonaa kadib maaragtay qaandada dhex mari doonaa kadib waa qabana waa daboolaa wax yar soo iskugu huuro midna waa idinka iloobay beerka markii hore intaanan ku shubin waxa soo sameeyay beerka naftiisa ku soo qasay wax yar oo maraq jubba hadaa ilan waa arkayseen cusbo yar ku dare
baradhada ku daraayay. Marka kanna waxaa sameeyay maraq jubba yar oo kusoo qasay si maaragtay oo u yeesho dhadhan fiican. Kadib biyo yar ku daray waayo waxaa ka rabaa wax canjeero lagu cuno wax yar oo suuga. asbaabta ugu daraayay baradhada waxay ahayd in suuga u yeelo ma fahanteen wax yar oo biyo ku darsado qiyaas kadib waxaa rabaa in suuga camal ii noqoto. waaw saanu ku soo baxay ma sha Allah baradhadii iyo beerkii saanu ku soo baxay wax yar oo suugo ma sha Allah ay noqotay. kin barbarooni iyo karooto kuma darin sababtoo adeegiga go'ano kamid ah hadda suuq u socda ko dukaanka ka bilaabo dalabaad diraa alaab yar oo aan keenay idin tusaa kadib suuq hor u sii gali doona. wiif jik xiin faniinsa soo socota dukaanka imaanto u jeediina u maleena ma sha Allah dukaanka waa kana waa idin keenay maanta waxa waa baatiyaal aan jarjari rabaa ila fiiriya ilaa door baatiya idin tusaa oo aad u qurux badan insha Allah ayagoo jarjarna waa helaysa yani inta waara rabtid lagu jaraayo ayadoo maaragtay diyaarsan waa helaysa diracyo iyo gabasaaradooda isla waa helay oo ku diyaarsan oo maaragtay markii lagu keeno hor le dhac iska siin stolini midna ka rabin marka da u baahan tahay idin waxay igala soo xiriiraysaa linkiga waxa idin soo dhigaa commentiga koobaad fiiri oo pink saaran soo raac group WhatsApp kaas waa only admin insha Allah luuqi igala soo hadal waa helaysaa. baatiyaasha mid waa kan cadaan iyo madow isku jiro oo shaashlow ah ma sha Allah aad u qurux badan yahay. sidoo kale mid kale ta ku xigo oo asaga ka sii daran baatiyaasha waxa ku dhaa midba midka ku xiga uu ka daran yahay ma sha Allah kulli qof badooq oo leeyahay. kanna waa mid kale asna waa shaashlow buluug iyo cadaan ah ma sha Allah aad u qurux badan yahay. dhowr shaashlow ku jiraan sababtoo ah dadka ay ugu wareeriyeen bidhaanay shaashlowgi aaway bidhaanay kariski aaway karisi originalna waa idin keene shaashlow aad u qurux badanna waa idin keene karisada gadaalay jiraan. videoga nala dhameyso insha Allah intaan hada soo gaarto waxa ka codsan laa ina like ii saartid markasto like ii saartid waa markasto dad cusub ay nagu soo biiraan walaalo cusub aa barano. baatiyaashan hadda aa jarjaraya u jeediin waxa laga diyaarinaa gabasaaro iyo diracyo fashion loo tolay abaayar geesi joogta soo dalbatay ma sha Allah waa u diyaarinayna ayadan u dhiibi doonaa maalinka dhiibeena insha Allah vlogger idin kaga soo sameeyna hada u baahan tahay adigan waa helaysa dukaanka imo hada Muqdisho joogtid gaar ahaan hada Madiina hada joogtid waxaan ku tilmaamaa waxay ku taalaa suuq Boocle moolka cusub ee diin doorte oo hada dawlad dhisay gudaha markaa gashid qolka labaad boorkeyga ba arkaysaa marka waa iman kartaa ama hada lambarka meesha idin kaga muuqdo videoga dhexdiisa darbiga lambarka ku dhagan waa soo wici kartaa. waaw ishcala baatigan ila arka waa karis original ma sha Allah aad u qurux badan yahay ani kulli waa ka helay idinka buu ogay dooqiina kulli qof walba dooqo leeyahay qof kastan dooqis inuu mid kamida ama laba kamida uu yahay macquul laakiin ani midkan aad uga helay. baatiyaashan waa saa idin sheegay midba midka ka dambeeyo aad uga sii daran yahay aad uga qurux badan yahay kuwa kale way dambeeyaan ciyaarta hadday bilow tahay waa sheekada ma fahanteen jooga idinka wax badan arki doono. midda kale waa iloobay videogan dhexdiisa hadda ku soo xasuustay waxaa jirtay su'aal oo commentiga la iga soo weydiiyay xalay arkay commentigaas laakiin gabadhaas kaliya ma aha dhowr qofood kale tan way weydiisay su'aashaas oo ah ilmaha ayaa ku haynayo carwadan ayaa ku gadaa maadaama hadda carwadii dhex taaganahay jaaniskaas inta uga faa'iideysana abaayo horta aan kaaga jawaabo marka hore ilmaha aniga haysto iyo gurigeygaba anaa haysto walaa gabar shaqaalan ii joogin walaa gabar kaloo caabisan ii joogin anigana diiday waana ka maarme marka anaa jeclaysta inaan gurigeyga gacanteeda ku haysto dukaankan gabar abaaya ii gado ma fahantay laakiin waxaan tagaa waqtiyada saan oo kale dalabka aad diraayo iyo waqtiyadii qof oo ii joogo kaleeto igu dhaho imo waxaas kaaga baahanahay markaas oo kaleeto waa tagaa oo waa soo xaliya kadibna iska soo laabta dhanka social media ana u qaabilsan laakiin gedista caadiga maalinlaha abaaya ii joogto gurigan anaa joogo ciyaalkan anaa haysto marka alxamdulillah waa ka maarmay ama waa isaga filanahay inaan gabar ila joog dhaho oo guriga iga saacid dhaho. ma sha Allah asxaabe kanna waa shaashlowgii saddexaad saa u maleynaa hadda videogeeda ku tusaayo asna jaalahan iyo madowga isku dhex jiro aad u qurux badan yahay midka hadeer dhamaan rabo kan waaye aad wax yariisa ka dambeeyo asaga had ugu yar inta meesha saaran ma fahanteen aad u qurux badan yahay. dharka hadda dalbanna wuu ku jiraa in yani mar labaad la soo celiyo awal baad wuxuu ahaa 3 daaqad
marka halkan daaqada ka dambeysay halkan intaan yariista ka dambeeyso laakiin kala kaleeto waxaa jira ani aan dalbay oo mar labaad aan soo celinayo ma fahmino marka waa soo celi doonaa insha Allah kana dooqaaga ah waa ka soo gaari weysid dhib ma lahan la tawalwal yaa aka walwalin waa la soo wadaa hadii la keenan waxaan ku dhahay video hada la YouTube ka fiirsanay ma fahantaa daa ugu xiran tahay waaye ila soc markasta waxaan ku dhahay gambaleelka ku furnaado daaqadan wali wax ma ka jarin hada ugu horeyso anoo hadda soo dejiyay kordheer waxa ka arkay maamo oo maaragtay 2017 biji ilaleefo ag cudi jira hasa qoslaya ku dhaay marka arkay anoo khayliya is arkay waagas waxa waa la jiray bukiyeer la jiray marka bukiyeerka ay u keeni jirtay galab ma fahantay ما شاء الله wax macaani sameey jirtano marka arkano khayliya is arkaaday anyway asxaabe ma sha Allah daaqdan aad u qurux badan tahay hadda waa keenay waa furitaanki ugu horeysay afuraayo ma sha Allah shaashloogana dad badan inuu noqon doono rajeena dooqooda aad u qurux badan yahay waxa ku dhibaatayaasha mid ka dambeys aad u yaani uga sii qurux badan yahay hadda waxa u maleena 3 xab miya ama 2 xab miya dhiman ayagana arka midka kale waa kana karis waa asagana waa karis original ma ahan wax dalka lagu kariyay kariska originalka kan kale wuxuu uga duwan yahay yaani dhaqso ma ka dhamaanayo mana isku liinbaxayo karisyo qaar waxaa jira deer oo asaga dhan liinbaxayo yaani marka biyo geli sidoo kale to asaga dhan midabkiisa isku darsoomay hada kuwan sas ma ahan waa kuwi originalka si kasta u dhaqid si kasta u yahaybo waxa ku dheemaysa ka darsoomayo fahamtay ma sha Allah sankan waa kana midabku waxa waaye qare iyo madow isku jiro ma sha Allah aad u qurux badan yahay anna meeshaan daldalan ku jira macmiila meeshii soo istaagto wax baahneed uga jawaabayay marka gacmihi hoola laga hayo afka laga hadla ma sha Allah asxaab waa kana kalarka kale waa kan waa u jeedin oo maleena asna waa viol kan violka aad u qurux badan yahay ma sha Allah asxaabe waxa meesha saaran yaani waxa baati meesha saaran dhan hal maalin ma idin wada tuskiri hal maalin ma idin furfuri kari hadda intaana idin tusay intaan gabar soo dalbata u diyaarinay dalab saas darteeda idin tuso idin kala bixiyay ma fahanteen marka insha Allah hada u baahanta inta in ka badan in aragtid xarunta noogu imaano soo booqo oo fiiri insha Allah mar kale to jaanis helan saano kale mar qaar waa idin kugu dhaxgali doona oo waa idin soo duubi doona laakiin hadda total ma wada duubi kari waa u jeedina umaleena qaaran duubina meesha saaran walow intii yaani haaf dhan aan soo dejiyo hadda geeskan aan dhigay inta kale meesha saaran tahay kuwa kale markay imaadaan waa idin soo duubi doona kuwaan haddana waaba aragteenbo kuwa hadda yaalo aan idin tusin insha Allah maalin kale ka badan oo ayadana idin tusi doono hadda laakiin intaas idin kugu talagalay videogeena maanta intaan uu ku egyahay wuxuuna ka koobnaa routine plus vlog yar ma sha Allah aad iyo aad u mahadsantiin hadda halkan soo gaartay fadlan waxa ka codsanaa inaad like ii saartid subscribe ku waan subscribe dheh channelkana rukumo oo gambaleelka furo si aad u aragtid waxyaabaha soo geliyo aad iyo aad u mahadsantiin kuni kojer waxa idin leeyahay isku soo noqod wanaagsan oo xiiso leh